inta badan wax ma hilmaamtaa oo ma isweydiinaysay sababta iyo sida aad xal u heli karto. 7 arrimood oo sababa hilmaamka badan iyo xalka ayaan muuqaalkan daawadayaal idinkula wadaagi doonaa. Boggaan follow inoo dhaha muuqaalkaana inoo share gareeya saaxiibayaal adinka oo mahadsan. Sidoo kale mararka qaar ma ku dhibaatootaa inaad wax diiradda saarto taasoo sii kordhisa hilmaamka. Xasuustaadu hoos ma u dhacsan tahay oo saameyn ma ku yeelatay shaqadaada iyo wax kasta oo aad samayso. Haddii ay jawaabtaadu haa tahay, dad badan ayaa kula mid ah oo dhibkaasi kula qaba daawade. Maanta waxaynu sharxaynaa sababta ay arrintaasi u dhacdo iyo sida aad u soo celin karto xasuustaada. Nasiib wanaag, labada arrin xalkooda isku meel ayuu ku jiraa. Si loo soo afjaro dhibaatooyinkan waxaan u baahannahay inaan fahanno halka ay ka socoto xasuus xumadan. Kuwaani waa 7 sababood oo keena ama hilmaamkiisa qofka uu farabato. 1. Cadaadiska saameeya maskaxda iyo dareenka stress waxa loo yaqaano. 2. Vitamin B12 la'aan. Haddii qofku uu ka dhamaato ama uu ka dhamaado fitamiinka loo yaqaano B12 wuxuu noqdaa ruux hilmaam badan sababtoo ah fitamiinkaas wuxuu aad muhiim ugu yahay maskaxda. Fitamiinkan ma ahan mid aan la heli karin ama aad ku khasban tahay inaad dhakhtar u raadsato. Waxaa laga helaa caanaha, hilibka xoolaha, ukunta iyo hilibka loo yaqaano digaaga. Isticmaal la'aanta. Waxyaabaha uu qofku maskaxda ku hayo way lumaan haddii uusan muddo dheer xusin ama adeegsan. Warka wanaagsan waa in wax walba oo aad hilmaamtay aad si fudud dib ugu baran karto xitaa haddii ay sanado badan kasoo wareegaan. 4. Daalka badan. Marka uu qofku si xad dhaaf ah u daalo waxaa dhaca hilmaam badan. Haddii aad daasho maskaxdaadu waxay xoogga saaraysaa in tamarteeda ay kaydsato. 5. Walwalka. Haddii aad walwalsan tahay waxay ka dhigan tahay in maskaxdaadu aysan xasiloonayn. Wayna adag tahay in aad xasuus yeelato marka aadna adiga laftaada ka dhex bixi karin maskaxdaada. 6. Faham. Lambarka 7 ee ugu dambeeya waa xasuuso xul ah. Maskaxda bini'aadamka waxay mararka qaar ka xulataa waxyaabaha ay xasuusta gelinayso. Bal iminkana saaxiibayaal waxa aynu eegaynaa siyaabaha kala duwan ee hilmaamka loola dagaalami karo. Marka ugu horeyso hilmaamka aad la dagaalami karto waa 7 arrimood ee ku soo sheegnay inaad ku dadaasho in ayaga dhan haddii aadna wada samayn karin qayb kamid ah aad samayso. Saaxiibayaal muuqaalkan muhiimka ah inoo share gareeya oo la wadaaga bulshada Soomaaliyeed. Mahadsanidin.